anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada soo koray dee family problem ee waalidkoogu iyagoo kala tegay soo aan qaaday soo caqliyeystay aniga hooyadii iyo aabahay waxay kala tegeen anigoo 5 sano jira haddaan qisadeeda ka waramo kadib 6 baan ahayn caruura hooyo aaba markay kala tegayeen hooyadii iyo aabahay waxay ku heshiiyeen inaan 6dii kala qaataan hooyana 3 qaadato aabana 3 qaato si loo kala qaybsado caruurta kadib laba wiil la 4 baan habla ku nahay marka hore hooya 6 caruur wada haysay oo aaba kala timiday aaba Itoobiya jiray hooyana Soomaaliland Hargeysa joogtay kadib hooyo 6dii markay haysay marka hore iyada waxay rabtay inay 6 caruur wada hayso oo iyadu koriso laakiin adigu problem jiray dartooda aaba wuxuu diiday inuu biilkii bixiyo reerka hooyana taladii waxay ka dhigtay in la kala qaybiyo oo 3na aaba qaato 3na hooyo qaadato kadib hooyadii maadaama iyada haysay caruurta 6daba wada haysay waxay la hadhay labadii hablood ee waaweynaa iyo inantii ugu yarayd aniga oo inana iyo labadii wiil waxaa la nagu daray 3 aaba qaadanay marka dhibaatada ugu badan aniga igu soo dhacday aabahay baa la geeyay waqtigan yaraa aabahay baa la koray maasha Allah si fiican buu soo kariyay waxba i baray laakiin dhibaatada la soo kulmay waxay tahay inan baan hay hooyo la'aan ma noolaa karo guriga aabahay wuxuu ahaa qof shaqeeyo oo subaxdiina maqan habeenkii 9 habeenimo soo hoyda marka waxaan noqotay inaan gurigii anigu keligii joogo oo waxaas aabahay guursaday iyo anigi labadii wiil maadaama wiil lahaayeen labadii wiil aaba ka haysan jiray wiilka ugu weyn isagu guriga ma iman jirin inta badan wuxuu joogay suuqa iyo meheradaha aabo wiilkii yaraa aniga guriga ku soo hadnay wiilkii yaraana intiisa badan isaga laftirkiisu wiil buu haay aabahay wala socon jiray aabahay wala joog jiray kadib aniga soo hadhay anigii meeshii waxaan ku noqday qof tee ku dayacan ilmo yar oo hooyo haysan oo walibana gabadha dareemi karta waxbarasho la'aan bay u dhacday inuu aabahay madrasad quraan biigay iskuul lagu madarin waxbarasho kale lagu madarin teemaan arag qof attention siiyo iraadiya waxay noqotay maalintii waqtigu intuu ka tiri laga yahay dhan ina waqtiyada roobo ku daayaan ina tooxyada ku soo ciyaaro anigoo gabadha habeenkii baan soo hoyanaya tobanka habeenimada doonto waqtigiyada habeen madow ah sida meelaha soo taaganahay dibadaha ugu soo ciyaaray anigu waliba ilmo yar oo naqan markaas aad u yar 10 sano aan gaarin baan habeenkii oo dhan meelaha soo wareegaya guriga soo noqonaya waan imanaya qof ismagay weydiiyo waxaan ku maqnaa tee qof ima hagaajiyo timahayga qof ma hagaajiyo jirkayga qof ma hagaajiyo aabay 9 habeenimo imanaya uu seexanaya diwaanin dareemi kartaan anigii baa guriga ku dhex dhibaatooday alxaasin waan weynaaday waan koray waxaan dareemay inay hooyadii joogin oo hooyadii ay magaalada ka maqan tahay aabay waanu sheegay arankii waxaan ku dhaabo waxaan rabaa inaan hooyadii u tago waan hooyadii la joogo maadaama aan inan hay aabahay markii hore uu iga diiday laakiin markii dambe way ogolaaday awowgii hooyadii dhalay baa la soo raaciyay oo Itoobiya ka soo kaxeeyay Hargeysa keenay hooyadii baan u miday hooyadii markaan u miday hooyadii iyo aabahay heshiiskoodu wuxuu ahaa inuu aabahay 3 haysto hooyadiina 3 haysto laakiin anu waxba ka mooyin oo ilmo yar baan markii kala tagay hooyo markaan u miday habeenkii markaan guriga soo hoyday subaxnimadii gaariga la saaray Itoobiya guriga aabay dib liigu celiyay mar labaad haddana sideedii baa dhacday waxaan ir hooyadii baa rabaa aabay dib gaarigii soo saaray Hargeysa dib soo noqday hooyadii baan u miday marka sababtu ku celinayna waa heshiiskan dhex yaala sababtu hooyadii celinaysa waxay ahayd hooyadii aabahay maadaama aabahay diiday inuu biilka bixiyo hooyadii talada waxa ku goysay inuu 3 haysto iyadina 3 haysto aan la isku imanin kadib aabaan u tagay waxaan ku dhaabo anigu hooyo rabaa inaan la joogo ma raba inaan gurigaaga joogo iyo xagan way soo direen Hargeysa miday Hargeysa hooyadii markaan u miday hooyadii sideedii bay samaysay oo waxay tiri anigu kuma haynayo maadaama aabaa ku heshiinay inuu 3 haysto anu 3 waan haysanaya asuu 3 haysto adigu subaxnimadii baa mar labaad la diray oo gaariga la saaray Itoobiya ku noqday aabay baan u tagay aabay waan diiday inaan la joogo waxaan idhi ma joogay xagan anigu waxaan rabaa hooyadii inaan hooyadii la geeyo aabahay uu diiday wixii hooyada ku soo celisay 2 jeer oo hore mar dambe lagu ma diray iska joog
awowgay hooyaday dhalay baan u sheegan ku dhaab awow hooyaa rabaa ina la geeyo awowna u itiiday waxaa la sheegay in hooyaday xaafaday deganayd ka guurtay oo meel kala degtay kadib waxaan sameeyey inaan gurigii aabbahay Ethiopian oo jooga kasoo baxsado oon anigoo welibana aad u yar oon kala garanaynin dhulka wadanka magaalada diina xaggana Somaliland tahay xaggaasina Ethiopia tahay oon kala garanayn gaadhigan soo raacay xaajiyad baan dhagada kasoo raacay Hargeysana mitay hooyadii baan mitay guriga hooyadii markaa ma garanayo hooyadii waxaa jirta macallimad bay ahayd iskuul bay dhigi jirtay kadib inaan gaadhiga markaan kasoo dego inaan Hargeysa imaado inaan gaadhi iskuulkii magaciisaan xasuustaa mogtahay garanaysaa kadib iskuulkii baan imiday iskuulka hooyadii baa macallimad ka ahayd markaa waqtigaan iskuulka imanayo hooyadii way maqnayd inuu walaashaygu weyn bay iskuulka joogtay iskuulka hortiisaan imiday anigoo ilmo yara oon magaalada kala garanaynin cidna garanaynin iskuulka agtiisaan fadhiistay ardaydii baan u sheegan kudhi waxaan rabaa gabadha magaca la yidhahda in iskuulka layga yeedho waa laygu yeedhay gabadh walaashay oo weyn bay iskuulka joogtay markaa gabadhii walaashay ahayd markay aragtay way iska ka qarisay maadaama ay dee iyadu way weyneyd way og tahay xaalka sida jira waan fadhiyey waxaa laygu yiri iskuulka wax laga soo baxayaa 5 galabnimo markaan Hargeysa soo galin waa 1 duurnimo 6 subaxnimo aan ka soo baxay Ethiopia ilaa 5 galabnimo waxaan fadhiyey iskuulka hortiisa weliba anoo ilmo yar oo aad u yar xataa intaan jiro ma xasuusto waan sugay gabadhii walaashay ahayd markay ka soo baxday way iska ka qarisay ardaydii way ku dhaxdhuumatay way iska ka qarisay anoo meesha sidii 5 galabnimo fadhiyo oo sugaya sila inantiiba ku soo baxaysa inantii markay soo baxday ay iska ka qarisay ardaydii bay sheekay ugu inantii aad sugaysay way tagtay xagee marasaayo wadadaasi bas ka raacisay waan ka daba cararay inantii baan u tagay waxaan ku walaal waanige waxaan rabaa gurigii maadaama guriga ka guurteen garan waayay waan soo baxsaday abinay mooyana gurigiisu gabadhii walaashada way soo kaxaysay gurigii bay keentay hooyaday oo markaas la guursaday oo ilmo yar oo kala haysata saddexdii hablood walaalaha inay la joogaan hooyaan u imiday waxaan ku hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mana rabay inaan aabbo la joogay waxaan rabay inaan adigu la joogo hooyo waxay igu tiri aniga aabbaha go'aan baan gaarnay inaan isaguna saddexdiisa haysto aniguna saddexdeeda haysto marka aabbaha ku noqo aabbaha la joog aniga hay imanin anuu nin kale aan guursaday nolol kale aan samaystay aabbahaana ma ogola inuu idin biiliyo maadaama uu saddexdan kaleba biilin waayey adigo afar kuma hayn karo adigu waxa dhacday inaan ku dhaho hooy aabbaha la garaaco oo aabbaha loo sheegay inaan kula joogayaan aabbaha la wacay waxaa lagu yiri inantan yara soo baxsanaysa dee waa ilmo yar hayla joogta biirka bixi maadaama aanu saddexdii kala hayo aabba wuu diiday wuxuu aanu biir ma bixinayo haddaad saddexda caruura aad haysatana ku darisada 4 kaga dhigsina waa alxamdulilah haddaanad ku daraynood haynayna iska soo celi hooyaday sidii bay samaysay subaxnimadiiba dib gaariga lay saaray Ethiopia lagu celiyay sideedii baa sameeyay waana sugay aabbahay iyo reerkii iyo dadkii u dhanbeel culuubay waan diiday waxaan dhaan hooyadii baan soo arkay walaaladii baan soo arkay ma joogay magaalada waxaan rabaa inaan hooyadii la joogo oo walaaladii la joogo waxaan isku dayay inaan aabbahay ka dhaadhiciyo aabbahay wuu diiday taas wuxuu dhaan biil ma bixinayo hooyadiina way diiday inay hayso mar afaraad baan isku dayay waa soo baxsaday waana mid Hargeysa mid hooyadii baan u sheegay wax ku hooyo aabbo waan ka soo baxsaday mana rabin inaan aabbo la joogo waxaan rabaa inaan habla la joogo haddii kale xataa laygu celinay aabbo inaan halay raaciyo maadaama inaan keligay ahay meesha ku dhibaatooday ciiditima iga hagaajinayn cidi daryeelaynin aabbaayuna gurigii joogay inuu yahay dee qof subaxdii baxaya oo habeenkii 9 habeenimo soo yeynay adigu hooyaday mar labaad markii dambe wax isku dayday in aabbahay ku qanciso inuu biilka bixiyo si aan afarteeda hablood meesha uga joogno aabbahay waa la hadlay waa loo sheegay waxa lagu yiri inanta yara soo baxsanaysa
ha joogtay waxbarasho la-aan baa haysee biilka bixi. aabbay wuu diiday. wuxuu idhi ama hablaha wada haysanaysaa ama wad iisu celinaysaa inantaas, adna saddexdaada hayso ana saddexdeedaan haysanayaa. waxaa dhacday inaan aamusi waayo, oon ooyo, oon qayliyo, oon diido inaa Itoobiya laygu celiyo, inaa gurigii aabbahay dib laygu celiyo, dhibaato fara badan inaan gurigii ka dhex qayliyo maadaama hooyaday reer kale leeday nin kala qabay. hooyaday xal kale markay weyday labadii hablood ee iga waaweynaa baa lay raaciyey oo lagu uri kaxeeya balidigu oo kasoo dhaadhiciyay aabaheed inama aabaheed la joogto ama in aabaheed lasoo diro si waxbarashada iyo nolosha lagu dabaro. aniga iyo labada hablood iga waaweynaa baa Itoobiya ku noqonay. gurigii aabbahay baa tegnay. aabbahay baa u sheegnay, waxaan ku nidhi aabbo waxaan rabnay inaan hooyadii la joogo, labadii hablood kale waaweynaa baa la socdaa, dee aabbo biilna sii. aabbahay wuu diiday. kadib hooyadii waxay xal ku keentay in aniga ay diido inaan guriga joogo. markaa aabbahay iyo hooyadii way tanaasul weyday oo way diiday inay ii tanaasusho ay tiraahdo hadda ilmaha yara soo baxsanaya ee kolba Itoobiya ka imanaya laba wadan soo kala gudbaya iska daa. aabbahayna wuxuu diiday inuu tanaasulo, uu yiraahdo bal ilmaha yartay soo baxsanayso hooyadeedu daa. labadu tanaasul waayeen. waxaa dhacday inaan Itoobiya muddo yar markaan joogo haddana soo baxsado oon hooyadii u imaato. waan ooyey, waan qayliyey, wax kasta waan sameeyey. hooyo waan u sheegay, dee heer waxaan gaadhay xataa haan waalan gaadhay hooyadii rabitaankaan rabay hooyadii darteeda. hooyadii haddana wax isku dayday inay aabbay dib ku qanciso inuu biilka bixiyo. aabbay waa lala hadlay, waxaa lagu yidhi inanta yar ha joogto bale biilka bixi. aabbay wuu diiday. hooyadii taladeeda waxay ku soo goysay mar hadduu aabbaha diiday inuu biilka bixiyo inaan aniga guriga kasoo gudin. ana waan diiday inaan aabbahay ku noqdo oo waxaan idhi waxaan rabaa inaan hooyada la joogo. dhibaatada ugu daran markaasay ku dhacday. aabbahay wuu diiday, hooyadiina way diiday inaan guriga joogo. waxay noqotay inaan igu dhan baa lagu dirayaa oo Itoobiya lagu dirayaa ama Hargeysa gal. ilma yar baan saaid baan u yarahay markaas. hooyadii anoo la jooga baa waxaan u sheegay, waxaan ku uri hooyo bal markii ugu dambeysay aabbahay waa anigii maqashay inuu diido dee markaas ugu dambeysa. sidii baa dhacdayoo aabbahay baa la wacay, waa loo sheegay, waxa lagu dhihi nanti yareed inay soo noqoto way diiday. biilka ma siinaysaa guriga ha joogtee bise biilka siin maysid aniguna magaaladan kusii daaya. aabbahay wuxuu yiri anu biil ma siinay. hooyadiina waxay tiri hadduuna aabbahay biilka bixinayn anagu ma haynayo. dhibaatada ugu darnata markaasay dhacday. gurigaan joogaa, hooyadii Hargeysaan joogaa, meesha ma kala garanayo, magaalada ma kala garanayo, ilma yar baan ahay, dee faamiligayga kale magaalada degan xataa ma garanayo. Hargeysa iyo Itoobiyana dee ma kala garanayo meeshan inay Somaliland tahay, meeshaan ka imid inay Itoobiya tahay. keliyaata waxaan garanaya inaan Hargeysa joogo, Hargeysa hooyadii joogto. hooyadii waan beriyey, waan ooyey, waan qayliyey, waan u sheegay wax ku hooyo kuma noqonayo Itoobiya. Hargeysana qof kale kama garanayo oo iyadan u imid soo maxay faamiliga magaalada degan yahay laakiin ma garanayo. waan isku dayay inaan ku qanciyo hooyo, laakiin aabbahay iyo hooyadii xumaantii dhexdooda taalay ay hooyadii diiday inaan guriga joogo. aabbahayna hooyadii dhibaatadii dhexdiisa taalay buu diiday inuu biilku bixiyo. aabbahay wuu tanaasul waayey oo wuxuu garan waayey inuu yidhaahdo ilmaha yar iska daa hooyada la joogta. hooyadiina waxay garan weyday inay tiraahdo inanta yare soo baxsanaysa aabeediisa iska daa iskala kaa joogta. waxaa dhacday labadoodiiba markay diideen hooyo habeen shalay oo kale nimid Hargeysa 10 habeenimo weeyaan. way timid gurigaan oo fadhiya. waxay ku tiri hooyo wad ku noqon aabbaha
أقول ما يكون نقنع حاجتي هذا ما حد سمينا سميست وهنقول وحربينا هذه كل شيء حتى وحبر شاي قدرين ها حتى أقول وحبي أنا كعنين حتى بدي ما تضط هاي ينبي لبحيه وأقول لك أنت دي يا وحبر شيء لو بعيه وحبر شيء أنا لسه كده يا أنت أنا لسه كده كليه تنسك تشوف كوريا وديتي هو واحد تري دي ما تضو بدن أبا كاني markii horena aabaaba diidayna inay wada haysto imikana isagaa diiday inuu biilka bixiyo markaa waxaad samayn kartaa inaad Itoobiya ku noqotid guriga aabaha iyo inaad magaalada gasho markaa waan yarahay waan diiday inaan ku noqdo guriga aabaha magaalada gasho markaa waxaan ku hooyo ma rabo inaan ku noqdo gurigii aabaha hooyadiina markaa caruur kale dhowr caruur ay dhashay ninkii dambe 3 caruur meelaas buu dhashay waxa dhacday habeen waa markaan ku sheegay shalay oo kale Itoobiya ka imid habeennimadii hooyadii ilaa hadal kalamnimadu waa tan ii sheegtay daaranka way ilaa hadal waxa sameeyso kale ma jirin oo ahayn deyn iska gidayso deeni guriga saarto hooyadii iyo inuu weyno walaashay curadeeda way wada hadleen heshiiska wuxuu noqday inaa caawa tumak habeenimo weeyaan inta guriga laga saaro albaab laga saaro